haddii aan diyaarad qaato xamar aan tago xilliga doorashada oo aan idhaahdo waxaan isu soo sharxayaa guddoomiyaha olimbikada soomaaliyeed ama xogeyaha ama ku-xigeenka misoo sharxi karaa waa labaan u kala qaadaya su-aashaada waa su-aal meesha ku jirta qof kasta horta soomaaliya oo dhab ka tahay inuu wax u qabto sportiga uu soo sharxi karaa waana wax u diidaya male laakiinse waxaa loo baahan wax kastaba qawaaniin iyo shuruuc bay leeyihiin anagu ma lihin dad baa waxay ku leeyihiin waa la qariyay lama sheegin cidna looma sheegin maaha anagu party politics ma nihin oo maxaa la yihahdaa inta maalin kasta lobbying sameynayo meelaha ordaayo hallay doorto waxaasaan qaban doonaa male may dadka sportiga ka shaqeeyay waa yaqaanaan dadka maxaa la yihahdaa sportiga waxaana usoo qabtay waxaana u qaban karaa ama hadda ka shaqeynaya ama meeshu ama xubin hadda ka hado ama yuusan ka ahaanin laakiinse sidaan kuu sheega waayo waxaa loo rabaa qofku waa inuu la leeyahay communication iyo xiriir waa inuu la leeyahay waxa socda waa inuu ogyahay wixiina fahamsan yahay waxa wax soo propose garayn kara inta iska diyaar iska soo qaato yiraahdo meel soo fariisto yiraahdo waxaan u sharaxana doorasho saas adduunka wax uga shaqeeya ma jiraan laakiinse hadduu u tago xiriirada uu geeyo yiraahdo waxaasaan ahay ninkaasaan hawshaasaan qaban karaa waxaasaan samayn karaa nimayahow magacayga hala propose garay hadduu u arko xiriirkaas ama associationkaas u arko ninkaan nin sportiga wuxuu kusoo siyaadinaya inuu yahay way soo propose garayn karaan soo qoran aniga waxaan rabnaa inaan guddoomiyaha inaan cabdinaasir inaan sanadkan in isaga loo doorto ayaan soo propose garaynaynaa waa la tixgelinaya inta qof oo lasoo propose garay kulligood waa la tixgelinaya laakiinse because waa meeshaanan joogaayo halkaan aan ka imid diyaaraddan soo qaatay miis baan soo fadhiisan waxaan leeyahay fartaan taagaya dadka la dooranaya ku jira qaabkaas adduunka cidna waxa ku shaqeeya ma jiraan waa sharci darro waa gartay xogaye dad aada u fara badan oo ku nool dalka gudihiisa Soomaaliya iyo dibadda ayaa ka soo horjeestay qaabka ay isu doorateen sababta keenta maxay tahay dadkaas inay ka soo horjeestaan hadiiba wixii ay furnaayeen qof walba ka soo qayb gali kara wallahi kolba waxa ugu fiican halayd in ayaga dadka la weydiiyo la yiraahdo war waxa uga soo horjeesateen maxay tahay laakiinse anagu waxaan ka shaqeynaa organization baan la shaqeynaa organizationkeega wuxuu ka tirsan yahay dowladda Soomaaliya ka register garaysan yahay adduunku wuxuu maxaa la yiraahdaa la register garaysan yahay adduunku la socda intiiba dadkii aan la shaqeynin stakeholderskayagii iyo maxaa la yirahdaa dowladdii aan la shaqeynin iyo international maxaa Olympic Committee iyo maxaa la yirahdaa aan xubnaha ka ahaynba kulligoodba aad bay ugu faraxsanaayeen dadka Soomaaliyeedna badankiisuna aad bay ugu faraxsanayeen marka kolba waxay la tahay qof aduu shakhsi dan gaar ah wuxuu ka xanaaqsan yahay kala qofku fiiri wax waa dhaleeli karaa waa diidi karaa wax waa la xumaan karaan laakiinse waxaa jira way iyo si wax loo saxaa jiro wax laga weydiiyo in meelaha inta la istaaga la caaytamo isna one of them meelaha laga caaytamo in wax laga dadka wax sidii wax lagu saxa maaha qofku hadduu wax dhaliilsan yahay qaab wax loo dhaliilaa jiro mar kastana waan iraana war dadka waan soo dhaweynaynaa wax kastoo fikrad fiican noo keenayo waan soo dhaweynaynaa weli dadka meelaha inta ka qeylnay weli qof inta ku yimaado war waxaas niman idinka qaldane saan u sax ilaa hadda ma hayno haddii ayagu fikrada kuu keenaan aad tiraahdo fikrad fiican kuu keenaan aad ku celisay qofku wuxuu raba waa sheegi karaa laakiinse ninaan weligiisna waxba kugu soo siyaadin waxbana kuu sheegin waxaad qaabka u socotay qaabka u shaqaysan laga yaabo inuusan fahamsanaynba hadduu tan meel iska taago iska qayliyo la yiraahdo dad badan baa wax feer maahan bay la tahay waxay la tahay waxa sheegaya ummadda Soomaaliyeed waa ka badan yihiin dad hal maqaad isku yimaada ama meel ka wada hadla waa ka badan yihiin ummadda Soomaaliyeed u jeedaan guddiga Olimbikada Soomaaliyeed sportiga Soomaaliyeed inuu waqti burburku u jireen inuu flag bearerkii calanka Soomaaliyeed inuu dhinto dadkii diidanaa inay yihiin haddeer oo dhibkaas uu jirana inay meel kasta inay tagaan magac iyo qiimihii Soomaaliyeed inay dib u soo celiyaan inay nooleeyaan inay rabaan waa ummadda Soomaaliyeed waa ogtahay eedaha ugu badan marka Mr. Ran waxa la leeyahay goos wuxuu ku ekaaday oo kaliya gobolka Banaadir Soomaaliya gobolo badan ayaa ka kooban sport badan ayaa jooga Kismaayo ilaa meelaha ugu dambeeysa ilaa iyo Galgaduud Puntland Baydhabo meel walba waxa ka jira xubno dad sport ayaa ka jira laakiin waxa la yiri jaziira tagteen meel ayaa isku soo xirteen idinka ayaa is soo doortay goboladii marka waxa la leedin leeyahay hadda guddiga Olimbikada Banaadir inaad tiin leeyahay arintaas maxaa ka leeyahay marka waa sax kolba waa wax jiri karo qofku waa istusi kara laakiin waxa ku fiican moogta waxa inay wax base leh inay noqdaan hadalkayga hore inuu ku jirtay anaga waa markii ugu horeysay aan isleenahay waagii hore oo maxaa la yiraahdaa dawladdu ay jirtay sida ahayd waa la ogyahay sportiga intiisa badan markii hore Banaadir buu ka socon jiray waxa laga yaabaa gobolada in laba asbuuc lagu soo ciyaaro sax miyay ahayd waxaan ay taala ma inay saxayd gobol kasta sportigu inuu meel kasta inuu iska mid ka yahay oo sportiga laga ciyaarayo oo sportiga Soomaaliyeedna oo si u wada hormaro waa waxaan ku aaminayno hamigeena ku jira Cabdinaasir marka waxaan habboonayn in la iska indhatiro qofka hadduu maanta fariisto halkaan inta fariisto uu Ingiriisku jooga oo ku qiyaaso Soomaaliya sportigeeda iyo kan British Olympic Association BOA inay isku u shaqeeyaan qofka maxaa la yiraahdaa asagu ka fakaraya waxa la tahay qof maxaa la yiraahdaa mantiq sax ku fakaraya inuu san ahayn
waa sax kelimad waxaa jirtay cali bin abi talib radiallahu canhu uu leeyahay oo maxaa la yihahdaa kalimatu lxaq yuraadu biha batil markii asaga kuwii kasoo horjeeday ku kacsanaa dagaalkii uu kala dhexeeyay markii ay arkeen in ayaka laga adkaanayay waxay yidhahdeen kitaabka ilahay baan xukun tagaynaa kitaabka kor ha loo qaado marka wuxuu ku yidhi waa kelimo sax oo kelimat alxaq weeye laakiinse waxay u wadaan ula jeedaan kuwaan maaha sax ulama jeedaan baadilnimay ka wada kelimat alxaq yuraadu biha baadil marka dad fara badan oo maanta ilah waa arkayna waddankii sporting in la gaarsiiyaa la rabaa maxaa la rabaa in maxaa la yidhahda xamar keliya uu ku egyahay maaha inuu hadal keliya noqdo maaha moogtahay haddii ay wax weligood iyo allooda mid soo sheegtay yihahda maxaa la yihahda meel yar ka xaaqay xataa gobol wax yar ka xaaqi lahaa markaas wax dhan bay ahaan lahayd moogtahay